waxaan qaatay mooto bajaaj anigoo u socda markaa inaan meel ka soo qadeeyo maqaayad ah. waxaa dhacday traffic culus baa jiray ama jam ayay waddadu ahayd. markaanu marayno guriga hooyooyinka meel la siman gidaar ah oo ay maxaa leeyahay istaagtay bajaajtii iyo baabuurtii dhan wada taagan yihiin ayaa waxaan arkay meel derbi ah, geed weyn iyo derbi. nin dhalinyaro ah oo markiisa qurux u dhashay oo runtii derbiga ku tiirsan oo koola jiidahay kuna tiirsan derbiga. bajaajlii ayaan ka codsaday inuu ii joojiyo mootada. waan degay, waan u tegay, waxaan idhi adeer ma kula hadli karaa? niyo xoogaa waqti fiican baan ku jiraa idaa buu yidhi. waxaad soo wadana waan aqaanaa buu iigu dara. maxay tahay baa iri? wuxuu yidhi iska daa kooladan inaad dhahdaa rabtaa. ma kuma dhahayaan iri ballan waaye, laakiin inaan kula hadlaan rabaa. waayo ilaa hadal buu yidhi. deedna trafficii baa dhaqaaqay. markii baabuurtii dhaqaaqeen bajaajlii baa hoonka ii yeeriyey. waxaa idhi nakeen, maanta waan soo wada qadaynaynaa nakeen. wuu ogolaaday, waa yahay buu yidhi. waanu baxnay, bajaajti baanu kaxaysanay. waxaanu tagnay maqaayadii aan u soconnay. waxaan ku yidhi maqaayad baanu gelaynaa, jeebka hoose gasho baashaan aad wadato, laakiin aan qadayno. waayo waxaa laga yaabaa maqaayadda inay diidaan oo nasoo cayriyaan oo ku yidhaahdaan maxaa leehdaa lalama ogola waxaan watay. marka qarsaan ku iri waxaada. dabcan maqaayaddu waxay maqaayadaha amnigooda la ilaaliya mid ka mid ah. waanu galnay, mis baanu fadhiisanay, qadaanu dalbanay. markaanu qadaynay muddo yar aanu joognay, meeshii waxaa ka dhacay qarax baa ka dhacay maqaayaddii. kala carar baa ka dhacay. markii la kala orday waxay kadib waxaan arkay ninkii oo raadinahay oo ku hay adeerkay aawe meelaha ordahay. gacantaan soo qabtay adeer waa noolahay ina keen. waanu soo baxnay meeshii, ilaahay way naga badbaadiyey. dad Soomaali baa runtii ku dhintay, wax ku noqdeen. waanu ka soo baxnay meeshii. bajaaj kale aanu soo raacnay. waxayna maanta waan isku qorana, waanu sheekaysanaynaa. ujeedkaygu markaa wuxuu ahaa runtii inaan bal tale iyo tusaale ninkaa dhalinyarada waxa ku kalifay waxa kan, iyo haddii ay jirto si loo caawin karo looga saari karo waxa kan, inaan wax ka ogaado. kadibna waxaanu isu raacnay xeebta Liida ayaanu isu raacnay. intaanu xeebta aadin waxaan ka dalbaday timaha oo aad runtii raamo u lahaa in laga dhaqo oo loo jaro. wuu iga aqbalay. timo jar baanu tagnay, timihii baa laga jaray. waanu baxnay. kadibna waxaanu tagnay maxaa la yidhaahdaa xeebtaanu tagnay. meel baanu fadhiisanay, kofee baanu dalbanay. waxaan bahashaan markaad u baahan tahay hadday ku qabato musqush ama meel luuqa kusoo dhuuq, laakiin meeshaan public waaye lama ogolo. inaan waqti kula qaatana waan rabaa aan sheekaysano. wuu iga aqbalay arrinta iyada. waanu sheekaysanay muddo 4 saacadood ku dhow ayaanu sheekaysanay ninkaa dhalinyarada ah. dabcan ujeedkayga aan lahaa waxay ka hortay inaan ogaado waxa ku dhaliyay waxa kan, iyo haddii ay jirto si looga saari karo. waayo markii hore wuxuu ka cudur daarto iga codsaday inaana dhihin iska daa. laakiin aan si psychologicaysan aan ugu dayo bal inaan maartay xog looga helo, isla markaasna looga waanin karo haddii ay suurtagal tahay. waxaan weydiiyey adeer waxaan kaa codsanayaa inaad ii sheegto marka u horeyso maxaad bahashaan ku haysataa. wuxuu yidhi dareen baan ku haystaa ishilmaansiin u badan. waxaa ii muuqatay markaa inay jiraan dabcan wax ku xambaaray mar hadduu ishilmaansiin ka sheekaynayo. waxaan idhi maxaad ishilmaansiinaysaa oo kugu qasbahayo? wuxuu yidhi adeer waa sheeko dhib badan, inaan ka wada sheekeeyo diyaaro ma ihi. aad baan u qodqoday, waa ka wareejiyey. barnaamijkii baan dib ugu soo laabtay kaftan iyo hadalla kadibna wuxuu ii sheegay in ay jirtay gabar ay isjeclaayeen ilaa iyo dugsi dhexe xilliga ay dhigan hayeen. wuxuu yidhi gabadha muddo dheer baanu wada soconay, dugsi dhexaanu soo wada dhammaynay, dugsi saraanu soo wada dhammaynay, jaamacad baanu wada aadnay. wuxuu yidhi ninkan hooyaday way dhimatay, waxaa soo korsaday adeerkay aabbahay la dhashay oo runtii ahaa adeer aad u wanaagsan, iga taxadiray. xitaa muddo dheer aan naa guursanin, isagoo u arkaya inta aan yarahay haddii aan maartay naa guursanin agtiisana aanu isku dhacno oo halkaa dhib ka timaado. wuxuu yidhi adeerkaas khayr allah siiya, adeer wanaagsan buu ahaa. iskuulaadkaygii, jaamacaddaydii wax dhan asaga ayaa soo bixiyey buu yidhi. waxaan u sheegay inaan jeclahay gabar, wuxuuna ii ballan qaaday jaamacadda markaan dhammeeyo inuu ii guurinayo, garab igu siinayo, weliba igu taageeri doono inaan ganacsi bilaabo ayuu igu yidhi. deedna wuxuu yidhi gabadhii aan saa heshiis ku ahayn waana laisku kaayoogaa buu yidhi. gabadha muddo dheer baanu sheekaysanaynay. waxaa dhacday buu yidhi marka inaan xitaa familkeedii wargelinay oo aan u sheegnay waqtiga aanu kasoo doonan lahayn gabadha, oo adeerkay uu la hadlay gabadha aabaheed. wuxuu yidhi arrintii sidii sidaa halkaa noo joogtay
maalintii dambe gabadhii baa ay soo wacday waxay tiri gacaliye gabar aanu saaxiibanahay ayaa la aroosaya oo iga dalbatay inaan maaragtay arooska ka qayb galo iguna tiri adiga iyo maxaa la yidhahdaa wiilkii aad wada socoteen imaada arooska sidaa darteed lacag baan kuu soo dirahayaa soo xiro labiskeeda ugu dambeeyay soo labiso adoo qurux badan maxaa la catarka ugu qaalisan isku soo bilbilay inaan arooska isu raacnaan kaa codsanahayaa wuxuu yidhi aad baan u farxay waan ka helay arrintaa waa soo dhaweeyey fursad dahabi ayaa ii ahayd waayo waxaan rabay xitaa saaxiibadeedii asxaabteeda inaan u sheego oo dhaho aniga laftigay mar dhow baan guursanayaa hanala garab istaago oo si aan taageero oga helo wuxuu yidhi waan soo labistay sidii baan yeelay timihii baan soo jartay anoo maasha allah iyo aad runtii u faraxsan ayaan imid buu yidhi hoolkii markaan imid arooskii uu ka dhacahayey gabadhu markaa waan ku baxno ku ballansan hoolka igu imo waytiri gudahaan kusii jiri doonaa iridkan magacaada dhigi doonaa kadibna maadaama aan akaar kula soo gaarin sidaas kusoo geli doontaa arooska wuxuu yidhi meeshii baan tegay dadku waxay wada dhiibanayeen buu yidhi invitation ama martiqaad bay dhiibanayeen markaan soo istaagay kaar maana wadan waxaan iri buu yidhi niyo waa layla ballamay gudaha ayay qoftii ballamisay joogtaa waxay tiri magacaadaan qorahayaa buug meesha yaallay baa la yidhi magacaygii baan u sheegay kadibna wuxuu yidhi magacaygii baa tig la saaray waxaa la niyo minxiis baad ku qoran tahay orodoo tag aroosadii hadda weli ma imaan gabadhiina minxiisyaalkay ku jirtaa sida meesha ku qoran la daloo sheegay minxiis baa tahay kursiga gees kaa fadh ah sii fariiso aad baan u farxay biyo mar haddii dee gabadhii aan la socday ay minxiiso tahay ana aan minxiis ahay waa labadeeni lamaane dhowaan qorshuhu ahaa buu yidhi inaanu isguursano waxaan fariistay buu yidhi miiskii baan fariistay kursigii baan fariistay laygu talagalay meeshii baan fariistay aad baan u labisnaa wuxuu yahay farxaddayda lama koobi karin buu runtii habeenkaas waxaa dhacday buu muddo markaanu fadhino ayaa muusig lagu dhuftay samicadii baa laga naadiyey in ay arooskii iyo aroosadii soo galahayaan wuxuu dadkii baa istaagay ka mid baan ahaa waan istaagay waanu sacbinay gabar buu wejigu u dadan yahay oo dheer oo dhuuban oo qurux badan baa dhexda lagu dhegan yahay ayada iyo buu aroos waa arooskii aroosadii waxay soo istaageen buu yidhi meel hortayda ay soo istaageen marka isheedu ma qaban buu yidhi dadkii minxiisayaalka ahaa ee socday isheedu kama aana dhex qaban qoftii saaxiibtay ahayd ee aan sugahaya inaan minxiiska la noqdo waxaan isirbiya malaha dib bay ka imaan doontaa muddo markii ay taagnaayeen gabadha wejiga u dadan hees baa loo garaacay heeskii bay isla cayaareen weli wejigii baa u dadnaa hal mar oo qura heeskii markuu istaago mid kale la saaray ayaa waxaa laga fayday biyo wejiga maradii ka saarnayd taashka qaybta ahayd ee ka saarnayd ayaa wejigii laga fiiqay oo iska rogay biyo ninka arooska ahaa oo ku dheganaa indhahaygu waxa ay qabteen biyo waxaan rumayn karo maanay ahayn oo maxay ahayd buu yidhi waa gabadhaydii saaxiibaday ahayd ee aanu ku ballansanayn buu yidhi inaanu asbuuca dambe aanu isguursano ee reerkoodii xitaa ogaayeen ee muddada dheer aanu wada soconnay ee isoo casuntay ee igu tiri manxiis baad noqonaysaa halkaa fadhiiso laftigeedii baa iyo indhahaygu qabteen buu yidhi gabadha dharka cad qabto waxaan iska dhaadhiciyey buu yidhi waayadan dambe wax la yidhahda branki iyo social media dhallinyaradii soomaaliyeed ku waasheena malaha waa branki ma noqonin haddana wuxuu yahay masayr kulul baa ay qabtay ma garanahaya waxaan sameeyo waan jeestay hadba dhinac baan u jeestay waxaan ribiya malaha waad riyoonaysaa indhahan isku qabtay buu yidhi indhihii baan muddo isku hayay waa kala qaaday waa furay wallaahi waa saxbiya waa iyadii markay aragtay bi anagoo madaxa hoos u laalaadiyey ayaa inta soo socotay gacanta ay qabatay ee tiri buu yidhi afka inta ii soo dhaweysay dhegteeda u soo dhaweysay tani sidani way dhacdaa si kaloo kuugu sheegana runtii ma garan karin nasiibka iyo calafka ayaa ina kala geeyey waxaan kaa codsanayaa inaadan isxumayn in rag ahaa tahay madaxa kor u qaad arrintanina way dhacday saasaana kuu casumay marka iga raali dhooqo calaf baana kala waday laakiin ogow weli inaan ku jeclahay ergaa ayay igu tiri buu yidhi wuxuu yidhi aad baan u shoogay haddana waxaan u maleeyey buu inaan riyoonahay hadalkani waxay naftayda ii sheegtay inuu yahay ayaan runtii rumaystay buu yidhi waxaa dhacday inaan jeestay kadibna aan irbiyo ma runbaa waxay tiri buu yidhi haa wiilkii la cayaarahayay oo arooska ahaa wuu sii daayay gacanta kadibna way xaggay garabka ii yara qabatay buu yidhi gees dadku waa la cayaarahayaa wiilku waa la mashquulinayaa waa la cayaarsiinayaa buu yidhi deedna waxay tiri buu yidhi dhegayso iyowna rag ahaa tahay dhexda xiro waan hubaa gabdho badan oo ku jecel adduunka inay joogaan
waan hubaa awoodeeda inaad leedahay kartida aad shalatay ugu shukaansatay aniga oo yar igu beertay jacaylka muddada dheer aanu soo wadnay way kugu jirtaa dadnimada iyada ahayd nin rag ahaa tahay madaxa kor u qaad ogowna calafun baa iga kaawaday xataa inaan weli ku jeclahay wuxuu yidhi intaa markii afka ka soo bixisay waan isku kaadiyey buu yidhi halkii anoo taagan waxaan dareemay buu kulayl oogada dhan la iga shiday waan isku kaadiyey buu yidhi dadkii meesha taagnaa ma aanay dareemin buu yidhi aniga xataa ma dareemin buu yidhi inaan isku kaadiyey in kale waxaan arkay buu yidhi qoyaan bowdyahaygii iyo maxaa leedahay sarwaalkii aan qabay wax ka muuqdo gabar baa gacantay qabtay xataa walaal biyaha kugu daatay kaamirooyinna way ku hayaane orodoo haddaad kartid sarwaalka iska soo bedel ayay si hoose igu tiri wixii anoo jaraynayo bowdyaha isla dhacahay ayaan iska dhigay wax musqusha aadahaya ayadana waxaan ku yidhi buu yidhi sii damaashaadoo sii dabaaldeg waan soo dharbedelanayaa wuxuu yidhi waxaan go'aansaday habeenkaas noloshii aan ku jiray iyo ridii aan ku jiray inaan wax ka bedelo oo maxaan sameeyey buu yidhi mootobajaaj ayaan kaxaystay buu yidhi marka ay maraysa biyo derbigan hadda adigu arkay adiga soo qaaday galabtaad maanta adiga soo qaaday ayaan ku leexday qoliyo koolo ku dhuuqayo meesha joogo yaan ku degay $5 oo igu jirtay biyo telefoonka ninkii bajaajta ayaan 3 ka mid ah u tuuray 2 ay soo hartay koolan soo gatay biyo derbigi baan la fariistay kooladii habeenkaas waxaan bilaabay biyo inaan koolo dhuuqo ciddii aan ka dhashay iyo adeerkay meel aan ku suganahay caawa cid allaale iyo cid og ma jirto waxaan go'aansaday marka saaxiib inta aan ka dhimanahayo inaan kooladayda dhuuqo derbigaygana iska fadhiyo arrintaa waxay ugu noqotay runtii arrin aad iyo aad la yaab u leh waxaan isku dayay inaan gabadha magaceeda ka ogaado wuxuu iga codsaday inaan weydiisan magaca gabadha wuxuu yidhi laakiin hintii ama tilmaan yar baan ku siin karaa haye wuxuu yidhi waa gabar dheer oo dhex yar oo dhuuban oo qurux badan oo cirid madow oo indhaha baalal waaweyn bay ku leedahay ee fururiyaha waaweyn tilmaan buu ka bixiyay gabadhi ee kubka sidaa leh ee dhexdaas aad buu igu tilmaamay haye maxaa hadda kuu qorshaysan baan ku yidhi wuxuu yidhi waxaa ii qorshaysan noloshayda inta aan noolahay waa laga yaabaabiyo mar inaan guursado laakiin bi hadda hankaygu ima siinahay ee damiirkaygu inaan aamino buu yahay gabar dambe oo adduunkaba joogto ka waran baa haddaad carab ama caddaan ama afrikada kale ama ma ka guursan lahayd maya biyo dumar waa isku dumar aniga waxaa dhibkan ii geystay waa dumar buu yidhi arrintan waxaa kala shaqeeyey buu yidhi oon ogaa gabdho saaxiibo la ah oon arkayey buu yidhi habeenkii minxiisyaal meesha ka ahaya joogay waxay ahayn biyo saaxiibadeed ku dhadhow runtii habeenkii sawirada iigu badnaa ee igu dhacay iyo mishinkanna waxaan rumaysnahay inay xitaa gabdhahaas ay la sameeyeen sidaa darteed waxaan go'aansaday buu yidhi intaan dumar colaad u qaadi lahaa inaan faraha ka qaado hurdaa iga soo dhici weyday buu yidhi muddo ma aanan seexan marka waxaan go'aansaday bi adduunka inaan ahaado maqane jooge qof maqan ee haddana jooga inta aan noolahayna inaan isdaroogeeyo oon sidaas maarata uga maqnaado ayaan go'aansaday buu yidhi runtii waxay igu ahayd qiso aad iyo aad u xanuun badan sheekada haddii laga helo qaybteeda labaad waa soo bandhigi doonaa laakiin hees ayaan ka sameeyey heeskaana insha allah mar baan idinla wadaagi doonaa laakiin haddii ay asxaabta aan arko inay sii xiiseynayaan sheekadaas meesha ay ku dambeysay iyo xaaladdu siday isu bedeshay qaybta labaad ee sheekada ayaad la socon doontaan aad iyo aad baan idiin salaamahayaa kusoo xirma boggan insha allah waxaan idinla wadaagi doonaa qisooyinka xanuunka badan ee aan heesaha ka sameeyey ayaan idinla wadaagi doonaa iyagoo muuqaal ah waayo heesku waxbuu ka hadlayaa sarbeeb ah laakiin qisadu sheekadu waxay samaynaysaa musawir kii oo dhammaystiran ayay ku siinaysaa mar dhowna waxaad arki doontaan heeskii aan ka sameeyey qisadan oo ah runtii qiso dhab ah qof ahaan aniga i taabatay ugu dambeyn waxaan ku gunaanadayaa qisadan qaybteedan dardaaran ah dadka Soomaaliyeed ee arka wiilasha derbiyada jiifo ee koolada dhuuqahayo asxaan u sameeya u gargaara waa ilmaheeni haisdhihina waa jokore haisdhihina waa derbiye jiif waxaa jirto duruuf ku xeeran oo aynan ogeyn ilaa aan ama ka daba tagno ama wareysano mooyaane qofna ha ku qiimaynin araggiisa muuqa iyo waxa markaa uu qabanahayo ogaadani Soomaaliyeed adduunka ma jiro qof xun ee waxaa jiro dhaqan xun ama caado xun ee la sameeyo qofka xumayso
qofka bilwaadniga waa bilwaadni haddii lala sheekaysto waqti la siiyo qof xuni ma jiro marka qiimeeya dhalinyarada derbi jiifka markaad aragtaan ha ka cararina la sheekaysto waqtina siiya waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo muuqaalkan kan xigo qisadan oo dhammaystiran insha allah aad iyo aad baad u salaamantiin